ganacsatada iyo dadka degan tuulada Raamey oo u dhow magaalada Gaarisa ayaa doonaya in dawladda ay qaado xayiraad dhanka soo saarka dhagaxa dhismaha kala duwan loo adeegsado gaar ahaan gypsumka oo sanad ka hor ay xanibaad saartay dawlad goboleedka Gaarisa kadib markii isku dhacyo dhanka dhulka oo u dhaxeeya beelo wada dega halkaasi ay dhaceen ganacsada lagu magacaabo Ciise Kunno oo kamid ah dadka goobtaasi ka soo saari jiray dhagaxan loo yaqaan gypsumka ayaa inoo sheegay in dad kor u dhaafaya 100 qof ay halkaasi ka shaqeyn jireen isla markaana maanta ay shaqo la'aan haysato asagoona sheegay in dadka degan tuuladaasi iyo nawaaxigeedaba in faa'iidooyin badan ay goobtan ka heli jireen meeshan aan gypsum yaan ka qodi jiray dhowr sano sanadka aan soo dhaafnay bishii 8aad ayaa la xiray sababta loo xiran waxa la yiri waxa weeyaan nabadgelyo darra ayaa loo xiray anigu naftayda dhibaato lii geystay li soo qabtay anigu nin oday abaan ahay 38 sano military ka shaqeynayay kilin record baan wataa wax nabadgelyo laan oo weligay wadankan aan ku sameeyay malaha si nabada baan uga soo baxay haddana guriga anaga baan imaaday oo ka shaqeysanahay waa li soo qabtay beengad weligay li gelin baa li geliyay wax ilaahay uunkiisa oo ilaa aminkan lagu hayana mala shaqadeedina waa la xiray ummadii aan caawimaynina waa kan waxay u dhamaanaysaa macluul iyo on iyo mataqaanaa meeshan waxa la tiray 22 tarakta ka shaqeynaysa oo mishan qof ah waa 130 anigu siyaasad kuma jiri siyaasana ma rabi wax mataqaanaa aan ka rabana male Ciise Kunno ayaa sidoo kale ugu baaqay barasaabka ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac Aadan in sida ugu dhaqsiyaha badan uu xanibaada kaga qaado howlaha deegaanka oo ay hayso shirkadiisa iyo shirkadaha kale maadaama aysan jirin cudurdaarkii ahaa inay ku lug leeyihiin falal amni darro asagoona dhanka kale sheegay inuu qayb ka ahaa canshuur bixiyaasha waaweyn ee ismaamulkan Gaarisa sida ku qoran warqadda canshuurta oo uu soo bandhigay waxaan rabnaa gavanaha iyo arsiga iyo wasiirka Xasan Cali Jooho inay arintan soo galaan oo gypsumkan la furo anigu waxa iga sii daran ummadii masaakiinta ah bal 110 wiil marka tirto intay aadayaan ayaga baa nabadgelyo la'aan ya bilaabi karaan marka waxaan u sheegayaa dawladda kore iyo tan hoosabo ina siyaasa iyo ganacsi aad kala dayseen waxa yeelay count revenue aan bixinay waatan haddaad fiiriso beejka ugu dambeeyo waa 21,360 ayaa hal bil bixin aaway marka hawshan waxaan rabnaa inay mataqaanaa ee gavanaha ummadan adiga governor u anigu waxay ahayd inaad mataqaanaa ee mahad noqdo markaan ummadaada biyo siin hayo oo aan raashin siin hayo oo 110 qof aan shaqo qoray inaad id mahad celisay ahayd bana governor ma ogiye inaad inta soo iska tiro waan xiray xir wax uu iman kara laakiin muddada way sanad 6 bilood bay xiranta Axmed Xasan Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha iskaashatada shirkadaha soo saara dhagaxan ayaa dhankiisa cabiray dareenkiisa ku aadan sanad kadib siday xaaladda tahay wuxuuna dhanka kale baaq ku aadan in dhagaxan xanibaada laga qaado u diray xukuumadda ismaamulkan Gaarisa iyo dawladda dhexe ee dalka waxaan codsanaynaa siyaasadda gypsumka in laga saaro meeshan dad baa sharci leh leesimaad dad leh Gaarisa county 3 iyo 4 ruux baa leesin leh Gaarisa county ina ka shaqeystaan inta badan waxay ka shaqeysanayaan sareedo iyo korkora inta u dhaxayso inta wax dhib oo ka jiro ma jiro nabadgelyo taala waxaan doonahaynaa oo aan ka codsanaynaa dawladda sare iyo dawladda hoose dawladda county Gaarisa iyo national government waxaan ka codsanaynaa gypsumkan wuxuu xiran yahay hal sanad iyo 6 bilood wax uu ku xiran yahayna ma garanayno dad baa mashiimo soo gatay dad baa sharci soo qaatay inta markii la sameeyay oo qarash la galay waxa la rabay in oo ma aragtay gypsumka looga shaqeysto ugu dambeyntii shacabka ku dhaqan halkaasi ayaa inoo sheegeen in fursado shaqo
oo shirkaddan ay siisay ay haysteen waxayna codsadeen in la fasaxo qodista dhagaxan si shaqooyinkoodii ay wataan. waxaan deganahay buulada la yiraahdo Raamey waxaan ka shaqaysanahay Gibson muddo hadda wuxuu xiran yahay sanad iyo 6 bilood waxaa la dhahay meeshan waxaa ka jira dhib oo qalalaase iyo nabadgelyo la'aan waxbana kama jirin weligeedana maana arkin baangad wato qori wato iska dhaafe marka waxaan ka codsanaynaa dawladda ilaa iyo wixii wax noo qaban karo inuu dhagaxii inoo furo ilmaan ku biilanayna shaqo kale ma haysano marka waxaan rabnaa dhagaxii inoo la furo aan rabnaa in Gibsonka noola furo waan rafaadsanahay ilmihii baa naga rafaadsan Gibsonka in noola furo haddaan nahay reer Raamey waxaan ku noolnahay meeshan Raamey ana siisinimaad waxaan deganahay dadku u shaago baan nahay waan ku nooleen biyaa noola keenay hamaan noola keenay haddana hadduu roob noo dee sidii baan haddana u rabnaa in wax laba noola keeno dhaqaal ma haysano waxaan rabnaa dawladda jooh iyo gafanaha iyo imbiga inay si degdeg ku imaadaan noona furaan weegan dhacdiis waxaan joogaa rajal la dhaho Ali Jibriil buulo ku magac dheer meeshan jabsi yaa laga bixinay ninkii bixinay wuxuu ahay Ciise Kunne haan hadayta oo iyo biyo shuma hadayta wax dawlad naga soo gaaray oo Ciise Kunne ka ahayn maana arkin dhagaxan laga soo saari jiray meelo kala duwan oo ka tirsan ismaamulka Gaarisa ayaa la joojiyay bishii Agoosto ee sanadkii hore kadib markii 6 qof lagu dilay agagaas. Bishaar Ahmed Dhaqane warbaahinta Star Gaarisa.